hooyo Nadiifo Maxamed Maxamuud oo loo garan og yahay Nadiifo Maxamed Gurey Ciid waa hooyo Soomaaliyeed oo dhashay isla markaana korisa 5 caruur ah oo 4 ka mid ah ay agoon yihiin waxa ay ku nooshahay degmada Shibis gaar ahaan Nawaaxiga Habar Qadiijo waxa ay la xanuunsanaysaa xanuunka kansarka oo dhowr cisbitaal oo magaalada Muqdisho ku yaala ay isku martay baaritaano kadib loo xaqiijiyay inuu hayo xanuunka kansarka kaasi oo ka haleelay naaska bidix waxa ay dhaqaatiirtu sheegeen inay qaadanayso 6 cirbidood oo cadadka isku darka lacagta lagu iibiyo ay tahay $1,000 waxaana sidoo kale jirta in daawada marka ay qaadato kadib ay gali doonto qaliin sidoo kalena u baahan qarashaad intaasi ka badan hooyo Nadiifo Maxamed Maxamuud ayaa ah hooyo danyar ah isla markaana madi ah hadda waxa caawiyo oo ay la nooshahay qoys Soomaaliyeed oo ay diris ahaayeen maadaama hooygii ay deganeed looga saaray sabab ah in kirada gurigii ay deganeed ay bixin weysay maadaama xanuunkan la soo dirsay inta uusan haleelin ay ahayd hooyo u shaqaysata caruurteeda balse hadda hooyo Nadiifo ma awoodo shaqo inay qabato tiyo ay u sii dheer tahay xanuun ay la taahayso har iyo habeen hooyo Nadiifo Maxamed Maxamuud waxaa ulyaal ka dhigay xanuunka kansarka ee dhaqaatiirtu ay xaqiijiyeen inuu ka haleelay naaska bidix oo ah halka wadnaha aadamaha uu kaga yaalo inay soo caawiyaan antaga daasan iyo wax la jiro naaskan hada dhibaataysanahay kansar laga sheegay doctor gada u tagay oo isoo qoray 5 cirbidood hal cirbid muslimka iyo abuuriyo soo duray 5 cirbidood iyo jireenka iyo dhiman ma saacidin ilaa qaal jara maasku xal jara 700 cirbadaan meeqa كل طبعا دلنا طبعا بقول سلاش هي بقول لك الشم هم طبعا قاعد المسلمين إني عاريان وعليه دلوقتي ما تقول كافليان بعد ما أحمل غلط فيني ما أكثر أول ما هذا من عادي سجوا شمسين كان عادي جو إحنا بحياة وأنا شقيسنا على عليه صار هذا أنت جبت إلى قرنال قريبا دقنا راسل لا مش شقيك مش شقيك حنون قاعد أنا أروح إليه مكسر حنون قاعد سوا مركبين مكسر مكسر هذا وهذا جاهل لا كمية أنا مطلع لا أي أمور مسلمين حتى أصلا هذا هم كانوا يشيعون إن يساعدهم الله يدري يدري أي لما كان شخصية يساعدون كروشان أي يسدح أكثر برقة شو عند كروشان يسدح كروشان يا كروشان ولا يرجعون ويرجعون حمصن كلماتيسن مضيعه وإهل الهي وحافظة توقع ملكة إلى ما إلى ما gabadhan Soomaaliyeed soo caawiyay ilaa dadkii soo caawiyay waa qof iska dhibaataysan oo xanuunka kansarka la daalaa dhacayso halaan ciyaar ma haysato ilaa dadkii soo caawiyay hooyo Nadiifo Maxamed Maxamuud ayaa dalbanaysa kaalmada shacabka Soomaaliyeed oo lagu yaqaano dad istaageera xilliyada dhibaatada hooyo Nadiifo habeen iyo maalin kama lado xanuunka ka haya naaska bidix waxa ay la dhibaatoonaysaa xanuunkani qadarta Rabbi ku yimid ee la soo dirsay waxaana bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan walaalaha muxsiniinta ay ka dalbanaysaa inay ka caawiyaan baahiyaha qarasheed ee xilligan ay u baahan tahay hooyo Nadiifo waxa ay ugu hagaajin karaan walaalaha Soomaaliyeed ee caawinaya hooyo Nadiifo nambarka shaashada idinka muuqda